الرحمن الرحيم سو دوادا dhamaantiina marti sharafta halkaan isugu timid rag iyo haween waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada ما ويلي يومين اسكو هاي ما كان افضل اسمه متى كاسواي خصوص dhammaan waxa idin leeyahay mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaada dhamaantiina xalfada dib u geelida calankeena waxaan idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada dhamaantiina mar labaad iyo mar koowaadba muhiimadu waxay tahay muhiimada halkaan isugu nimada waxay tahay inaan muujino inaan leenahay calan aan hore u lahaan jirnay in mudana uu naga maqnaa ma ahan micnaheedu haddii aan calan samaysanay inaan nahay dad hadda calan samaysanayo dad hadda soo kacay micnaheedu taas ma ahan dad badan ayaa waxay u fahmeen markii la yiri boqortooyada qoomiyadda sagaalka eele waxay samaystay calan ayagoo dhahaaya hadda ayaad calan samaysteen hadda ayaana tihiin dad soo kacay taas waa qalad haddii ay idin haysato aqoon yari iyo cilmi yaraan waan u jeedaa laakiin ha ku xadgudbina dad aydan aqoonin qiimaha iyo qaayaha ay leeyihiin qof walba waxa loo baahan yahay inta garaadkiisa uu yahay inuu ka hadlo haddaan nahay haweenka qoomiyadda sagaalka eele waxaan u baahanahay door muhiim ah inaan ka qaadano guul aanan haween ku jirin guul ma gaaraan rag walba guul gaar waxa ka dambeeya haween hadayse haween jirin dunidan guul laga ma gaareen waxaan nahay haweenkii u baahnaa inaan dib u yeelno calankeena aan ku soo dhaweyno gacmo furan dhamaantiina waxa idin leeyahay waad mahadsantihiin waqtiga aad noo soo horteen qiimaha iyo qaayaha aad nasiiseen iyo fursadiina qaaliga ah aad qayb naga siiseen aqoonyaaniinteena waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar koowaad anigoo ka hadlaayo gabdhaha haweenka boqortooyada qoomiyadda sagaalka eele oo Soomaaliya joogo waxaan idin leeyahay soo dhawaada dhamaantiina nala qayb qaata xalfadan quruxda badan aan isugu nimaanay qof walbana waxa loo baahan yahay inuu garto qabiilkiisana uu ku faano maahan micnaha haddii qabiilkaaga sheegatid inuu yahay qabiilkaaga qabiil xun qabiilkaaga hadaa sheegatid maahan qabiil xun dad baa dhahay qabiilkaas waa hebel waa qurun no taas ma jirto marnabo qabiilkaaga ku faan qabiil waxa la isku dhahay in la isku garto maahan micnaheedu in la isku caayo ha ka faanin marnabo qabiilkaaga halkaan waxaan uga hadlayaa dad fara badan iyo dhalinyaro fara badan oo qarnigan